السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada meel walba joogtaan aad baa idin jecelahay asxaabteeda sida aragtaanba muuqaalka ka aragtaan waxaan ka hadlaynaa Bilaal Bulshaawi oo ah wiil dhalinyaro ah oo caan ka ah barta TikTok kaas oo in muddo ah ku xirnaa magaalada Hargeysa sababo la xiriira in uu cabay shaah uu ku sawiran yahay midabka calanka Soomaaliya ayaa hadda ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maxkamadda magaalada Hargeysa oo marar badan dib u dhigtay kiiska lagu haystay Bilaal Bulshaawi ayaa markii dambe go'aamisay in muddo 24 saac gudahooda uu si degdeg ah looga saaro deegaanada Somaliland hadda Muqdisho ayuu joogaa Bilaal Bulshaawi asxaabay ducadeena Ilaahay wuu aqbalay in badan oo idinka mid ah maamadii waa aragteen markii hooyadiis ay ooyneysay iyo walaalihiis aan u wada duceynay Soomaali dhanna ay u duceysay in maamadaas wiilkeeda loo soo daayo oo maamada ay sheegtay si agoonnimo asagoo agoon inay soo korisay ayna xanuunsan tahay alxamdulillah Ilaahay wuu aqbalay ducadeeni wiilkeediina waa loo soo daayay maasha Allah asxaabteyda intaas in la wadaagaa newskaas idin haya maanta subscribe ii saara share gareeya asxaabtiina u dira like saara aad ba u mahadsantihiin dhamaantiina aad ba in kugu mahad celinayaa soo dhawaada inta cusub aad idin soo dhaweynayaa inta hore ila joogtana aad ba in kugu mahad celinayaa asxaabteyda khayr ba idin dhaafay bi amaane la bye bye